waxaan leeyahay shacabka reer awdalow waar haddii ugaaskii shalay hadlay oo uu yidhi codka iigu heeliya waar haddaynu xabaddii ugu heelin weyne shalay maanta aynu codkeenna ugu heelino waxa madaxweyne muuse awdal ka sameeyey wax la qaadan karo maaha waxaad ogtihiin ugu dambeeyey meyd Soomaalida waxay tahay meyd maxaa u dambeeyey ka imika la siisido shalay markay kambiinka ku jireen halkii isagu gaariga ka saarnaa madaxweyne muuse bixi cabdi iyo halkuu saajin haystay ayaa tusaale cad inoo ah ninkii dhiig leh isbedelka maanta waxaan doonayaa kelmad kooban inaan ka idhaahdo dardaarankii u dambeeyey maadaama berri oo salaasaa waxaa ku xigta maalintii arbacada ee 13 Novembar oo dadweynaha reer Somaliland oo dhan ay u dareeri doonaan goobaha doorashooyinka codbixinta waxaan si gaar u dardaarayaa oo si gaar ula hadlayaa dadweynaha reer awdal galadegeen gobolada Siril iyo awdal iyo degmooyinka oo dhan waxaad ogtihiin in shalay uu hadlay madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sheere saylici oo marka siyaasadda la yidhaahdo gobolka awdal mas-uulkii ugu sarreeyey qaybta siyaasadda waxaa isaguna shalay hadlay ugaas cabdirashiid ugaas rooble ugaas doodi oo ah mas-uulka ugu sarreeya beelaha gadabuursi ama samaroon ee dhaqanka labaduba waxay calaamadeeyeen in sanadkan maanta reer Somaliland ay u baahan yihiin isbeddel labaduba waxay calaamadeeyeen in gobolka awdal uu ka qayb qaato isbeddelka siiba ugaaska guud ee beelaha gadabuursi wuxuu si cad shalay u sheegay in loo codeeyo isbeddelka oo la doorto cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo madaxweyne ku-xigeenka ambassador maxamed cali aw cabdi kuwaasoo runtii aan isleenahay waxay ka midho dhalin doonaan ballanqaadadii ay ballan qaadeen madaxweynuhu ballan qaaday ayay ka midho dhalin doonaan leenahay waxaad ogtihiin khudbaddiisii u dambeeyey ee musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee waddani dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu ka jeediyey khayryada boorama wuxuu ballan qaaday uu si cad u sheegay in kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka awdal uu wax badan ka qaban doono oo kay ka tahay waddada isku xidha fardaha ilaa iyo boorama ilaa jabuuti wixii xaniman inuu qaadi doono inuu ka shaqayn doono waddada isku xidha baki iyo boorama 100 maalmood oo horeeya wuxuu ballan qaaday in garoonkii ay caruurtu ku ciyaarisay xaaji daara culmi stadium in isagana wuxuu ka qaban doono wuxuu ballan qaaday in garoonka xidhan muxuu ahaayey boorama diyaaradaha oo isagana wuxuu ka qaban karo uu ka qabto kaabayaashii dhaqaalaha ee reer awdal u baahnaayeen iyo halkii reer awdal xoqaysaba musharaxa madaxweynaha ee xisbiga waddani uu ballan qaaday innaga maxaa laynaga sugaya haddaan reer awdal nahay maanta waxaa laynaga sugayaa haddii maalintii ugaaska la celinayey aanu ka tala bixiyey waliba anigu aan ku yidhi arrintaa madaxweyne inaga daa raggii maalintaa dabada ka waday in ugaaska la celiyaa maanta muuqooga iyo socodkooga iyo araggooga wuu ka duwan yahay bulshada reer awdal wayna is ogyihiin waan ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba haddii aynu shalay ugaaskeena xabad lagu celiyey oo aan ugu hiilin kari weyne xabadda waxaan leeyahay shacabka reer awdalow waar haddii ugaaskii shalay hadlay oo uu yidhi codka iigu heeliya waar haddaynu xabaddii ugu heelin weyne shalay maanta aynu codkeenna ugu heelino bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Somalilandba maanta waxay soo eegayaan codka awdal anigoo og 181 cod ee gobolka awdal yaala inay intaa in la eegay aynu codeynin oo awdal 180 hayn ay laban laab yihiin oo ayna goobaha 153 goobada ee la dhigo gobolka awdal inta in la eegay maqan tahay oo meelaha qaarkood aan goobuhu gaarin oo meelaha qaarkood buurley u badan yihiin oo ayna baabuurtu marin oo xaalad duruufaha reer awdal la tacaalayaan ognahay haddana 180 cod ee awdal maanta ka diiwaan gashan haddii ay noo codeeyaan iska 140 ka mid ah ama 130 ka mid waa in boqolkiiba waa in isbeddelka loo codeeyo oo loo codeeyo xisbiga mucaaradka ee waddani iyo ururka ka
xisbiga mucaaradka wadani iyo ururka ka hoo isku lamaan oo isbedel doona in loo codeeyo taas waxay noo saamaxaysaa haddii aanu dhalinyarta aqoon-yahanka salaadiinta haweenka iyo waxgaradka reer awdal haddii aan waxay noo saamaxaysaa in gobolka awdal haddabeed lagu tartamo lagu tartamo uu noqdo haayaha wadanka ka mida maraykanka gobol ka mida inuu noqdo oo nin kasta oo siyaasiya oo doonaya inuu madaxnimada somalilan qabsadaa inuu isagu hadduuna cod ka helin gobolka awdal inaanu madaxweyne noqon karin bay noqonaysaa haddii aanu iscaraacno maanta reer somalilan innagayna soo egayaan isbedelkii baa loo kaba qaatay isbedelkii baa loo diyaar garoobay shacabka reer somalilan oo dhan maanta waxay rabaan inay isbedel ka mana dhaliyaan weli lama arag lamana maqal mana dhicin madaxweyne la doortay 7 sano 5 sano la doortay oo 2 sano loo kordhiyey oo haddana somalilan dib ay u dooratay weligeed lama arag lamana maqal marka waxaan nagu dardaarayaa shacabka reer awdalow war haddii shalay aynu u hiilin kari weyno xabad ugu hiilin weyno ugaaskeenna war aynu maanta codka u helino oo maalinta arbacada 9 subaxnimo marka nin walba uu soo qaato kaarkiisa waa in 9 subaxnimo codka reer awdal laga helaa inay isbedelkii u codeeyeen inay go-aankii ugaaskooga qaateen inay go-aankii iyo ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenkooga 14 sano madaxweyne ku-xigeenka inay kaana qaateen in halkaa ka soo baxday hadday taasi dhici weydo oo macaarid maxaafidba la isku soo dhawaado ma la isu ag dhaco waxaad ogaataan in wixii aynu sheegaynay in cabashadeennii iyo saamigii aynu sheegaynay in waxaasoo dhan uu beenoobi doono ogaada war maantaynu jaanis haysanaa jaaniska maanta aanu haysanaa wuxuu ina soo mari doonaa 7 sano ama 10 sano dabadeed ama 5 sano dabadeed bayna soo mari doonaa war maanta jaaniska aynu haysano hanfarteenna ku aargoosanno waxa madaxweyne muuse awdal ka sameeyey wax la qaadan karo maaha waxaad ogtihiin ugu dambeeyey meyd soomaalida waxay tahay meyd maxaa u dambeeyey kaa iminka la sii sido shalay markay kaambiinka ku jireen halkii isagu gaariga ka saarnaa madaxweyne muuse bixi cabdi iyo halkuu saajin haystay ayaa tusaale cad inoo ah ninkii dhiig leh ninkii damiir leh ee damiirkiisu nool yahay ee dadnimo lihi halkii uu madaxweyne ku-xigeenka saajin haystay gaariga dheega uu haystay soo musharaxa madaxweyne ku-xigeenah iyo halkii muuse saarnaabaa tusaale inoogu filan reer awdalow haddii dhawaaqa ka soo yeela salaadiinta dhaqanka dhawaaqa ugaaska ka soo yeela dhawaaqa siyaasiyiinteeda ka soo yeedha dhawaaqa ka soo yeela madaxweyne ku-xigeenka haddii dheg jalaq loo siin waayo oo ay dadku damiirkoogu kici waayo halkaa lax walba halka isqashaa lagu qalaabaa la yidhi halkaa un baynu oolaynaa taariikhdan waxay noqonaynaa gobol aqoonta ee mar walba calacala un bay noqonaynaa war firteenna aan ku aarsanno rag iyo dumarba ha la kaco 9 subax codkeenna isbedelka ha laga arko